الحمد لله نحمده أن هدانا للإسلام وجعلنا بفضله ورحمته من أمة خير الأنام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون، ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. صدق الله العظيم. الله نوافعه كلام رب العالمين. نعمة كسته أو إنسان كإلهي أوسيي فهي من الله. نعمة إلهي نسيي أنه ما أنت قوبتها الشغل نمت، نعمة الإيمان، نعمة الاجتماع، كلا إلهي درتيس أنه أكلني horta bal inay nicmo tahay aynu yaqiinsanno, ilaahayna aynu ku shukrino subxaanahu jala jalaaluh. awooddeenna iyo xowlkeenna iyo quwaddeenna midna ma aha, waa bitawfiiqi rabbina subxaanahu wa tacaala in uu nagu kulansiiyo inaynu isugu nimaadno lidikrihi subxaanahu wa tacaala wa shukrihi. waana waxaa lanoo abuuray ee adduunkaba ilaahay noo keenay. ujeeddada abuuritaanka insaanka ilaahay uma baahnayn, insaan uma baahnayn, bani aadan uma baahnayn, makhluuqu ilaahay uma baahna. in allaha laganiyun can alcaalamiin. makhluuqaad kaloo fara badan buu ilaahay leeyahay. waxa kaliya ee insaanka loo abuuray iyo jinniga siduu ilaahay noo sheegay, ila liyacbuduunii. wa min ahami alcibaadaati shukruhu. marka nicmada ilaahayna siiyey baan ilaahay ku mahadinaynaa subxaanahu wa tacaala. kulanka dikrigiisa aanu ku kulannay, ujeeddada iyo isu imaatinka la isu imanayo ama muxaadaraadka iyo duruusta iyo magaranaysa khayrka halkan laga sheegayo ee laga yaabo fawaa'id cilmiya laga faa'iidaysto, waxaa ka weyn oo in badan ka weyn mawcuudaadka iyo ballanqaadyada ilaahay ee qaybiga ah ee lanoo ballanqaaday dadka ilaahay dartii isugu yimaada, in ilaahay u naxariisanayo, in naxariisi ay ku soo degayso, in sakiina wax la yidhaah oo iimaanka siyaadisa ay ku soo degayso, in intaaba waxa ka wada weyn ay malaa'igtu ay hareereynayso, intaaba waxaa ka wada weyn in allah rabbulcaalamiin uu xusayo subxaanahu jala jalaaluh. marka taasaynu kulligeen wada niyeysanaynaa in sha allahu tacaala. يعني هذا الكوبن بايو يقول أخونا عبد الرحمن وأنا إيدي وحيد هذا الكبدسان وهو اللي وحيدين ما نيش ورق يروه بركة وحال يرينا المهد نقورت إلهي بنو مهد نقينا. ثانيا وحنو مهد نقينا يعني أخواننا جزاهم الله خير سوق من قابلي اجتماع يقول أن كان أنصار السنة على رأسهم أخونا عبد الرزاق جيل المشهور بجرنال عبد الرزاق بان كما هدينا يو كوحديسا وحا مهدا وين له مرتقاتك اي نو هركلي شيء دولة سومالي لاند او وليبا اي ادي اد نوغو شرفين اني كسو ودا قيب غلين مدحديدي نوغو وينا وزير الاوقاف والشؤون الدينيه يو رئيس البرلمان يو عمدة البلد iyo asmaa fara badan oo kamida waxay arintaasi tusinaysaa ihtimaamka iyo dadaalka walaalkan Sheekh Xasan oo halkan kaga dhawaajiyay kulamada kala duwan ee diinta la isugu imanayo, sawaan musaabaqaad qur'aan ha noqoto, ijtimaaca dacawiga ee caalamiga ee caalamka laga imanayo ha noqoto, kulankan hadda la isu yimid iyo kulamo kale fara badan. waxa yani waxyaalaha lagu bishaaraystay aan ku farxsanahay saaka on aad ugu farxay kamida inta halka isugu timid waxaan oran karaa boqolkiiba 99 waa dhalinyaro wey
هذا وأرن يعني هدي أرنتو تسنيسة مستقبلك ودن كان وليها إن شاء الله إن إله الرالي كان نقضي إن إلهي الرالي كان نقضي هدو إله الرالي كان نقضنا سعادة الدنيا والآخرة أي اللي بانيا مشايخ الدمان وما هذا نقينا كل إن شاء الله تعالى مقعيد هذا لما بدأ إلوبي حاضرين تسوى حاضرين قبلها يويل الشباب كل وضع ما هذا نقينا إلهنا نقول أقبله اجتماعنا اجتماع مبارك الله نوغدقه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه